haddii aad arki jirtay iyadoo la dhaqdo geela iyo ariga waxaanu maanta la kulmi doonnaa wiil Soomaaliyeed oo dhaqda shinida. Shinidu waa mid ka mid ah cayayaanka loogu xabsi badan yahay haddana ugu wax dheefka badan. Maxamed Cabdulaahi Barre oo ah arday bartay xanaanada xoolaha ayaa hal abuuray ganacsi cusub oo manfaciisu uu gaaray gobol kasta. Maxamed waxa uu gobolka Hiiraan ku leeyahay beer uu ku dhaqdo shinida in ka badan 100 sanduuq oo midkiiba ay ku jiraan boqortooyo shini ah oo ka kooban qiyaastii 50,000 ilaa 100,000 oo shini ah ayuu Maxamed ka shaqeeyaa si uu u soo saaro malab saafi ah. waxa uu haatan magaalada Muqdisho u soo safriyay tacabkii shinida waa malabkii waxaan ka nimid magaalada Beledweyne oo aan ka soo qaadnay malabkan waxaana joognaa hadda oo aan ka wada hadlaynaa xamar malabkan aan gacanta ku hayo waa malabkii ama productigi aan ka soo saaray magaalada Beledweyne oo aan u suuq keenay xamar. Maxamed Cabdulaahi Barre isagoo ka faa'iideysanaya hal abuurkiisa gaarka ah waxa uu aasaasay shirkad malabka soo saarta oo lagu magacaabo Tayo. waxa la shaqeeya koox dhalinyaro ah oo ay ka wada shaqeeyaan soo saarista malabka qaab casri ah oo ka duwan kuwii hore. markani waa xilli habeen ah oo ay ka shaqeynayaan Maxamed iyo kooxdiisa diyaarinta malabkii ay soo saartay shinida si ay ugu iibgeeyaan magaalooyinka waaweyn. Bismillahirrahmanirrahim. waxaan joognaa xarunta malabka ee Tayo. sida aragtaan waxaan maalaynaa malabkii cadaadka oo soo go'ay. sida aragtaan kabarkan waa kabar oo malab ka buuxo. santuuqmankan waa santuuqmo hore loo soo diyaariyey oo lagu soo aruuriyey hadba kabarkii malab leh ayaa lagu soo aruuriyey oo lagu soo xareeyay maantadii hore laga xareeyay. maadaama maanta laga xareeyay marka caawa la rabaa in la maalo haddii Ilaahay idmo. waxaan samayn doonaa inaan xanjada ka fujinno oo marka xanjada sidaa uga fujinno oo dahaarka aan ka qaadno. dahaarkaas mar walba wuxuu caddeeyaa in malabkani uu noqday malab bislaaday oo diyaarsan inuu noqdo. marka waxaan rabnaa inaan dahaarka ka qaadno. dhaqashada shinidu waa mid cabsi badan marka aadan garanayn qaabka loola macaamilo iyo xaaladaha ay marto. Maxamed Cabdulaahi Barre waxa uu muddo 2 sano ah ku dhex jiraa 100,000 oo shini ah isagoona wax xabsiga ka qabin la noolaanshaheeda iyo inay dhibaato u geysato. Maxamed oo aqoon gaar ah u leh dhaqashada xayawaanaadka maadaama uu jaamacadda ka soo bartay waxa uu si casri ah u dhaqdaa shinida oo kaliya oo uu arko inay tahay ganacsi faa'iido badan. waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida shinida loola macaamilo iyo qaabka uu u soo saaro malabka. waxa hor yaalla waa malab wuxuu leeyahay 2 kalar sidoo kale wuxuu ku jiraa caagado kala duwan. kalaradan waxay Soomaalidu inta badan kalarka way aad u kala door bidaan way kala fadilaan waxay rahaan malabka gaduudan wuxuu ka fiican malabka cad. labadan malab annaga soo saarnay waa labadaba waxay ka yimideen dhirta qodaxda leh. kanoo kale waa malab ka yimiday geedka la yiraahdo sarmaanka waxa u soo raaca geedka la yiraahdo cadaadka oo aan 3 u qaybino la yiraahdo cadaad guduud. eerida uu ka baxay malabkan ama malabkan laga keenay waxa ku badan geedkaas cadaadkaas iyo sarmaanka ku badan. sababtaas waa sababta uu la gaduutay. kanoo kale uu cad yahay white sababta uu la cad yahay waxay tahay waxaan ku maalnay deegaanka maxaaseed degmada maxaas deegaan hoosta oo la yiraahdo Guni Ribad oo ku badan yahay geedka la yiraahdo cadaadka. marka 10 kilomitir ilaa 20 kilomitir oo square oo cadaada oo wax kale aysan ku oolin oo u bixinayso waxaan geynay shinideennii waxayna soo saartay malabkaas. Xuseen Xaaji Xasan warbaahinta qaranka